برشوي ودستوركي ودري شعور له برشوي ودستوركي ودري شعور له تدكني ترجمي برشوي ودستوركي ودري شعور له برشوي ودستوركي ودري شعور له تدكني ترجمي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا ونكسن دعوة اللي لهان تبا كنا سود هذا برنامج كني هبين رمضان تا هدية الدستور كوا برنامج أنا قلت لك الله إنه نكون يريجل إنه مواطنين تسمعنا أنا يبرتان حق الدستور كودا ما نتقاضي أنا وأكو يدينا سؤال عيدا قرأتنا سين الدستور كيو قدر العجة أو قلت لك شيء وزارة الحركة قال يا شيء يا رماد الدستور برشوي ودستوركي ودري شعور له برشوي ودستوركي ودري شعور له بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يالو إحنا كوجد جنا برنامج كهدية دستورك oo dadweynaha lagu weydiinayo dastuurka Soomaaliland cidii garatana la siin doono hadiyada dastuurka awal markor magacaaga sadex Ahmed Cabdiqani oo degan New Hargeysa gaar ahaan magaalada Hargeysa gaar xaafadda New Hargeysa wax ma dhigatay dastuurka ma akhriday waan akhriyay laakiin aad ma xifdisan way waxaad noo sheegtaa wasaaradda dastuurka magaceedu ku jiro wasaarado badan baa qaranku leeyahay wasaaradda kamidka ay magaceedu dastuurka ku jiro ووزيرك وزير ما وزارة قلاياش دستورك وزارة حلف قلاياش دستورك اسكدون أحسن لكن يا شباب تستعداد دك قاعد علني برشوي ودستوركي ودري شعور له برشوي ودستوركي ودري شعور له هديد الدستور مرة مقعد وعبد الشكور مصعقة ودقن هركيسة قارهان نيو هركيسة واي سؤال اللي قلتينا واحد تلابي تيسته سؤال لحد الدستور كرتوا ولا ما أخذ دستورك كله وحنوان كآخري دي أكتف نكمل هي أمان وضع دمين واي سؤال اللي قلتينا واحد سؤال صاحب كاي كوريا قرم الدنيا كيف عيدي ستو وزارة الدستور كله وش يجي مقعد وزارة بدن مقارن كله لكن وزارة كم إذا مقعد سعد بوجيا لا محي هذه دستورك مرة وزارة ده مقعد دستور هو وزارة الدستور كي الرما وزارة حلف قلاش هذا دستور بدون أكسية لكن يا شباب تستحدث دون برشوي ودستوركي ودري شعور له برشوي ودستوركي ودري شعور له فرور مقعد قصده مقعد وحويان أحمد فارح ورسمه أحمد فارح ورسمه دستورك ما أخرده دستورك كله ما وضع آخرين لكن حاجة وأنا آخرين حاجاتك أنت مقالة هرقيسة قارهان حافظ الشعب لعلات كتشو waxaad noo sheegtaa su'aashii saaxiibadaadii ka horreeyay aan weydiin inaan ku weydiino oo waxaan doonaad ka faa'iidaysato waxaad sheegtaa wasaaradda magaceeda dastuurka lagu sheegay wasaaradda magaceeda dastuurka lagu sheegay waxa weeyaan baan haddaan isku dayo waa wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka waa isku day wanaagsan laakiin waa jawaabta saxdeed aad kaaga mahad celinaya برشوي ودستوركي ودري شعور له برشوي ودستوركي ودري شعور له marka hore magacaaga magacayga Axmed Cabdi Maxamed oo degan xaafadda Shiidaha way su'aal baan ku weydiinaa dastuurka horta dastuurka wali ma akhriday ama inaba wax fikrada ma kaasay aad buu akhriyaa waxaad sheegtaa imisa xisbiga Soomaaliland la ogoliyay tirada xisbiyada Soomaaliland la ogoliyay asxaabtu waa imisa waa saddex xisbi aad ma santay waad ku guuleysatay hadii dastuurka marka ku gudoosin doona waa tahay hadiyada dastuurka ee dastuurka kuugu talagalay adigu maxaad qabatay anigu waxaan farshaxan jaara aad iyo aad ugu mas'uul dastuurka iyo dastuurka sidaan wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka barnaamijka ku fududeysay iyadana bixisay ugu mahadnaqay aad iyo aad ugu mahadnaqay lamaan iyo adinka iyo shaqaalaha iyo wasaaradda wal mahadnaqay wal mahadsantahay aad ma santay برشوي ودستوركي ودري شعور له برشوي ودستوركي ودري شعور له والله waxaa la yiraahdaa Cabdiweli Cabdi Jaamac Cabdiweli Cabdi Jaamac halkee degantay waxaan deganahay Sheekh Madar maxaad qabatay aduu kulli siyaasadda aan ku yar dhex jiray imkan wax badan ma qabto laakiin shaqaale waxaan aan jiray dawladda imkan ana risan garay yar ganacsiga ugu yar jiray aduu ganacsada way yahay siyaasiga ganacsada way su'aal baan ku weydiinaa la xiriirida dastuurka haddaad garato wax lagu siin doonaa hadiyada dastuurka kuugu talagalay waxaad noo sheegtaa maalintii يعني واحد كذا تاريخ مالنتي هي بشو حلقة هيد هي بشي هي سنة كيس مالن حرية إذا كقاطين إنجليزك
ingiriiska walaal waxaa ka qaadatay 1960 juun bay ahayd allahumma salli ala maxamed juun 16 juun bay ku cesho mar kale 24 juun fursad saddexaad waan ka siinaya اللهم صل على محمد 26 جون bay صح 26 taas sax ku tahay waxaan u maleynayaa malaha diyaaradda hoosteeda ku qorade waayay waxa ku siinaa markaa hadiyada dastuurka وتعالى كو قرن موقت ملا waxaan isir halkan oo ka eegay ma xabada ma ku bedelnaa waa tahay waxaan ku siin doonaa markaa hadiyada dastuurka oo ay kugu tala gashay wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka sidoo aragta barnaamijkan barnaamijkaas waxaan u arkaa aad iyo aad u wanaagsan dadkana uu dhiiri gelinaya dhalinyarta waana muhiim horta bulshooy waa dastuurkii waa dareen shucuur loo bulshooy waa dastuurkii waa dareen shucuur loo ay daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hadiyada dastuurka marka hore magacaaga magacaygu waa Cabdiruus Maxamed oo degan xaafadda Qaadare waayay Cabdiruus waxa lagu weydiinayaa su'aalo la xiriira dastuurka diyaar ma haa diyaar baan way su'aasha lagu weydiinayaa waxa weeyaan Soomaaliland imisa dal ay xuduud la leedahay saddex waxay la xiriiraan waa kala sheegaysaa marka inta dal yihiin afar dal Ethiopia Djibouti Soomaaliya iyo Kenya haa marka la kulmo waxa weeyaan Djibouti Ethiopia iyo Kenya haa aad wada maasanta isku day wanaagsan laakiin ma jawaabti saxda ah dadkaaga bulshooy waa dastuurkii waa dareen shucuur loo bulshooy waa dastuurkii waa dareen shucuur loo waxa lagu guda jiraa barnaamijka hadiyada dastuurka marka hore magacaaga محمد بن معي محمد حسين oo degan حرور way su'aasha ku weydiinayeen hab maamulkii Soomaaliland ka hor intaanay xorriyadda qaadan nooc mu ahaa ma nooc gumaysi buu ahaa ma nooc boqortooyo ahaa mise nooc ilaalineed buu ahaa نوع قويسبا nooc gumaysi ها نوع قويسبا ayay ma aha jawaabti saxda ah dadkaaga had celinay bulshooy waa dastuurkii waa dareen shucuur loo bulshooy waa dastuurkii waa dareen shucuur loo درساق أحمد oo ku magac dheer كرنت kale dad fara badan oo halka ka arkay way ku garanayaan waxa isleeyahay waxa weeye waa saxafigi way su'aashii saaxiibkay ka horeeyay aanu weydiinay ayman ku weydiinaa soo diyaar mid سيونكس way waxaad noo sheegtaa hab maamulka marka Soomaaliland maxay Ingiriiski ka hor nidaam caynka waa mid gumaysi buu ahaa ma mid boqortooyo ah mise mid ilaalineed buu ahaa maxamed su'aasha hadaan isku dayo jawaabteedu waxay noqonaysaa Soomaaliland lama gumaysan maxamed waxaad markaa dusha laga ilaalin jiray ilaalin ma noqonaysaa nidaam ilaalin waayay aad wada maasantay oo guuleysatay marka wax lagu siin waa tahay daawadayaal Cabdiraxmaan Koronto waxaan siin doonaa hadiyadii dastuurka waxay ka kooban tahay dastuurkii Soomaaliland iyo qadar lacag ah oo loogu talagalay iyadana in lagu hafo sidoo aragtay barnaamijka maxamed isaadanaad bad maadsan tahay barnaamijkan kulli maadaama dad muwaadiniin ah oo Soomaaliland mar walba dastuurkeena iyo in qaabkiisa barnaa aad bay wanaagsan tahay ana filaya dad badan oo aqoon leh dastuurka in halka soo bixi doona guuleysan doonaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda xiriirka golayaasha bulshooy waa dastuurkii waa dareen shucuur loo bulshooy waa dastuurkii waa dareen shucuur loo yaal barnaamijkeeni koobantaas ayaynu ku soo gabagabeynaa intaanu barnaamijkan mid lamada ku kulmi doono waxaan idin leeyahay ballanteenu waa inagoo kulana iyo idinka guuleysta aad ba mahadsantahay bulshooy waa dastuurkii waa dareen shucuur loo bulshooy waa dastuurkii waa dareen shucuur loo dadkeeni turjumay